الحمد لله رب العالمين وكفى والصلاة والسلام على رسول الله. شيء والباء ما لدي كروا حرام أم حلال أرنكاس كلام كاسي وخضع إلا الله سبحانه وتعالى النبي كيس وحي الربين وحرام يكون المام إن حرام ليلاده حلال يا حرام إلهي سبحانه وتعالى النبي كيس يا حلال وحنا حرام تنمي من اللي بعد وحي تهي حديث سميسا فعل oosan diintaada lagugu amrin allahna ku amrin nabiga uusan ku amrin ama quraanka laga helin aayad sariix ah ama xadiis saxiix ah hadii aan laga helin arinka aad sameeyay waxay noqonaysaa arin bidca ah oo la soo darisay bidcadu macnaheedu waxa tahay wax cusub oo lagu soo daray diinta ama muxdas lagu soo dariyay sida hadda tusaale ahaan ay tiri mawludka nabiga kaleey salaatu wasalaam siday u dhigeen hadalka saadarteed diinta islaamku waxay qabtaa nabiga kaleey salaatu wasalaam in la xusaa wayna ku sugan tahay nabi loo idaafeeyay aadaankii aqimka oo kale nabiga kaleey salaatu wasalaam magaciisa lagu sheego arinkaasi waa cibaado waxa kale loo idaafeeyay wax diinta islaamka loo idaafeeyay aan ka mid ahayn oo quraan ama xadiis saxiix aan ku jirin arinkaasi waa bidco wax walba oo la gooni noqdo islaamka waxa wanaagsan oo waajib ah inaad u laabato quraanka kariimka xadiis saxiix ah أما ثلاثة قرونتي فضل بدنات النبي عليه الصلاة والسلام خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم يفهم كقرآن كحديث صحيحة أنت القرآن كآخرنا ما أن كأرك آيات إلهي سبحانه وتعالى وكل هي هل حصة يعني ما الله سمى احتفال مولود النبي وحواجب مرك قفك إنه صنصمين مولود النبي وحليلاده بل حديث الربا أو صيدة صحيحة أو ربا nabiga kaleey salaatu wasalaam oo soo mijiray maalin saxaabiga wadiya rasuulullah maalin bisniin oo somtaa markaas uu yiri maalintii la dhalo maalinta dhimanayo sadartii hadii aad rabtid son maalinta isniinta arinkaas waa saxiix way sugan yahay laakiin ihtifaal la isku imaado oo nabi amaan halka lagu sheego habeenimo maal lagu dhaxo badal lagu ruugo arinka waxay shabahaysaa nimanka masiixiyiinta oo ihtifaal u sameeyaan nabiga ciisa kaleey salaam mana ku sugnaan kitaabkooda injiilka inuu dhashay 25 December mana la helayo xadiis cadeynaya arinkaas oo ihtifaal in la sameeyo saxaabada nabiga kaleey salaatu wasalaam ihtifaal ma aysan u sameyn khayr khalqillah khulafaa rashidin sidoo kale ma aysan sameynin Abu Bakar Umar Uthman Ali kama aysan sugnaanin ahad kamid inuu ihtifaal sameeyo nabiga kaleey salaatu wasalaam oo xusay oo u dhigay ilaa hadda lama hayo hadii ay tiraahid oo ku jawaabto tiraahid anagu wan ihtifaal ayaan u sameeynaa waayo nabigeena aad baan u jecelnahay waxaan doonaynaa inaan maalinta dhasho aan aad u maamusno waxaan ku leeyahay waxaad ka jecel badan tahay asxaabtii nabiga kaleey salaatu wasalaam Abu Bakar iyo Umar iyo Uthman iyo Ali miyad ka macnaha ka jecel badan tahay nabiga kaleey salaatu wasalaam waxaad ii sheegtaa saxaabada mid kamid ma sameeyay ihtifaal mawlud nabi oo arinka ma helaysa hadii aad helaysaan fadlan ila wadaaga la soo gaarsiiyo waxaan idin xasuusinayaa asxaabta nabiga kaleey salaatu wasalaam inaysan ihtifaal u sameeyay nabiga kaleey salaatu wasalaam oo bisha mawlidka ay qadrin wayneen ma aysan soo aroorin hadii aad haysaan qul haatu burhanakum in kuntum saadiqiin.